بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما أنت تاريخه وصدح شعبان كون 444 هجري. waxaan rabnaa dadka muslimiinta ah guud ahaan gaar ahaan dadka ku dhaqan banaadir in aan la wadaagno arrin soo korortay. arrinta soo korortay waxay tahay cabashooyin inay naga soo gaareen dadka waxgaradka magaalada Muqdisho ayagoo ka cabanahaya arrimo soo ifbaxay oo shaac noqday. waxaa ka mid ah dadka banaadir waxa ay ka cabanahayaan daroogo xadaaf ah oo magaalada xamar soo gasha, taasoo dadkii ku yeelatay saamayn xun iyo waxyeello da'yartii waxgaradkiina ay u taag waayeen. qodobka labaad oo ka cabanahayaan waxaa weeye dadka reer Muqdisho waxa la yiraahdo dacaaro ama faaxisho la yiraahdo ama zina la yiraahdo, qof walba siduu u yaqaano, oo ku soo badatay magaalada oo dadka qaarkood ay ka dhigteen ganacsi ay ka shaqaystaan, taasoo loo kireeyay guryo iyo hoteello intaba oo si shaac ay noqoto dadkuna ay ka cabanahayaan. qodobka saddexaad wuxuu yahay ciyaal weero, kuwaasoo magaalada qaybo badan oo ka mid a dhibaato ku haya, saamayn xunna u geysay dadkii, kuwaasoo dadka isugu daray dil, dhac, kufsi, ilaa ay gaareen dadka qaarkood inay xubnaha taranka ka jaraan. dhibaatooyinka ay geysanahayaanna waa niman ku faanahaya oo xitaa baraha bulshada gelinahaya. qolada afraad waa tuugo. tuugadaas weliba waa tuugo hubaysan, kuwaasoo magaalada ku soo batay. waxyaabaha ay geysanayaan waxaa ka mid a dhac ay dadka dhacahayaan, inay guryaha hameenka u dhacaan, inay dadka waddooyinka u joogsadaan oo waxa ay wataan ay ka furanhayaan. afartaas arrin markay dacwadoodu ay soo gaartay mujaahidiintu waxay bilaabeen inay baaraan arrimahaas oo ay sahmin iyo xog ururin ka sameeyaan degmooyinka magaalada Muqdisho. baaritaankii mujaahidiintu ay wadeen waa soo dhammaaday. xog waxaa mujaahidiintu ka heleen dadka mujrimiinta ah oo soo gasha magaalada daroogada, kuwa ka ganacsada, kuwaasoo caqligii bulshada in badan oo ka mid a fasaadiyey oo dhibaato u geystay. waxaa kaloo mujaahidiintu ay xog ka heleen guryaha dacaarada lagu sameeyo iyo hoteellada dacaarada u karaysan iyo dadka arrimahaas ku lugle intaba. waxaa kaloo mujaahidiintu ay xog buuxda ka heleen tuugada iyo ciyaal weeraha. xogta la helay waxaa ka mid ah halka laga abaabulo waa la ogaaday, cidda abaabusho waa la ogaaday, horjoogayaashoodana waa la ogaaday. intaa kadib mujaahidiintu waxay go'aansadeen inay ka howlgalaan arrimahaas si xumaantaas loo suuliyo oo meesha looga saaro, dadka muslimiinta ah oo Soomaaliyada gobolka Banaadir ku dhaqanna ay uga nabadgalaan aafooyinkaas ku soo kordhay magaaladooda. ciidanka mujaahidiinta ee Muqdisho ka howlgala waxay amar ku qabaan in ay tallaabo ka qaadaan dadka xumaantaas ku lug leh. cid walba oo arrimahaas guracan ku lug leh digniin baan u jeedinaynaa. waxaan leenahay 1 waa kaa warhaynaa, 2 waa kugu soo soconnaa, waxaan kugu baaqaynaa inaad toobad keento, xumaanta aad faraha kala baxdo inta aanan ku soo gaarin. baaqa waxaan u jeedinaynaa waalidiinta waxaan leenahay ka warqaba oo u kuurgala waxa carruurtiinnu ay ku lug leeyihiin, wiilal iyo gabdhaba. mujaahidiintu waxay u taagan yihiin ilaalinta diinta, nafta, maalka, caqliga iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah. cid allaale iyo ciddii intaas duulaan ku ahna jawaabta ku habboon oo shareecadu fartay ayay naga helaysaa insha Allahu tacaala. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.